السلام عليكم ورحمة الله. عروري sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa sheekadii saddexda sac iyo libaaxa. Sidan ay ku bilaabanaysaa. Waa hore ayaa waxaa jiri jiray meel daaq cagaaran oo cusub oo ay saddex sac ku noolaayeen. Sac cad, sac madow iyo mid gaduudan ay ahaayeen. Lo'dii ayaa aad iskugu naxariisan jiray, aad ay iskugu fiicnaayeen. meesha xooska ay wada daaqi jireen oo meel u dhowna way seexan jireen habeenkii. ilaa ay ka dhacday maalin maalmaha ka mid ah in libaax kaynta ama duurka ku noolaa inuu jidkaas soo maro. libaax ma faraxsanayn, baahi daran ayaa haysay, wuxuuna rabay xoolo uu ugaarsado. markii libaax uu arkay lo'dii aad ayuu u farxay, laakiin ma weerari karin sababtoo ah waa wada joogeen oo dad midaysan ayay ahaayeen. sidaa darteed libaaxi wuxuu iska fariistay meel gees ah, wuxuuna sugayay inta ay sac kala tegi doonaan. laakiin lo'dii ama sacyaashii waa wada joogeen oo ma kala tegin sababtoo ah waxay ogaayeen haddii ay wada joogaan inaan bahal soo weerari karin oo qof dhib u geysan karan uusan jirin, maadaama haddii ay isbahaystaan qof walba ay ka adkaan karaan. laakiin lo'da ma kala dhaqaaqin oo waa isla sii joogeen oo ma kala tegin. libaaxina aad ayuu u murgay, wuuna xanaaqay maadaama ay kala tegi waayeen. markii dambe qorshe ayaa ku soo dhacay, wuxuuna u dhaqaaqay dhankii lo'da, waana salaamay oo wuxuu dhahay, sidee tihiin saaxiibayaal, ma fiican tihiin? muddo dheer ayaan idin raadinayay saxaabiyaal, laakiin maadaama aan aad u mashquulsanaa waa idinka soo gaari waayey oo xaaladiina waa idin weydiin waayey. maanta waxaa isdhahay si kastaba ha kugu qaadatee waa inaan u taga asxaabtayda oo aan soo arag sida xaalkooda uu yahay iyo caafimaadkooda. libaaxi ayaa wuxuu ka codsaday inay afartooda hadda kadib si nabad ah oo saaxiibtinimo ah ku wada noolaadaan oo hal meel ku wada noolaadaan. saddexdii sacna way ka aqbaleen. libaaxii ayaa saaxiibo dhow ka dhigtay lo'dii gaduudnayd iyo tii madooweyd, wuxuuna mar walba wax xun ka sheegi jiray lo'dii caddayd. waxaa ka mid ah waxyaabihii u sheegi jiray, lo'dana cad waa caajis, lo'dana cad dugaagta duurka joogta ay nagu soo jiidaysaa midabkeeda cad. alla haddii sacdan cad aan iska saari lahayn, farxad iyo reynreen ayaan ku noolaan lahayn. ilaa markii dambe uu ka dhaadhiciyey labadii sac in lo'da cad loo sheego inay asxaab kala raadsato oo meesha iskaga tagto. wuxuu libaaxay sidoo kale labada sax u sheegay inuu isaga hawshan adag dusha u ridan doono si looga takhalluso sacda cad. habeenkii markii la gaaray ayuu ku booday sacdii caddayd oo meesha ku cunay ayadoo labadii sax kale ay fiirsanayaan. dhowr maalin kadib ayaa libaaxay wuxuu bilaabay inuu si gooni ah ula sheekaysto sacdii gaduudnayd, wuxuuna ku yidhi, sacdan madooban waa nacay, waa sac shar badan oo aad u foolxun. wuxuu sidoo kale u sheegay in sacda gaduudan iyo libaaxa isku midab dhow yihiin oo saaxiib ay weligood ahaan doonaan. wuxuu sidoo kale ka dhaadhiciyey inay iska saaraan sacda madooban si la mid ah sacdii caddayd oo kale ayuu sacdii madoobayd sidoo kale meesha ku cunay. ilaa maalintii dambe uu meesha ku soo haray sacdii gaduudnayd. libaaxi ayaa u yeeray sacdii gaduudnayd. sacii gaduudna ayaa isagoo qarqaraya oo cabsanaya wuxuu u tagay libaaxii. libaaxi ayaa ku yidhi, saaxiib, maanta waa tookadaada, adiga ayaan kugu qadaynayaa maanta. sacii gaduudna ayaa aad u ooyey oo soo xasuustay, wuxuuna ku yidhi, maanta ma ahan maalin aad i cuntay ee waxaad i cuntay maalintii aan kuu oggolaanay inaan cunto sacdii caddayd. maanta ma iskaa difaaci karo. markaasaa wuxuu yidhi, anagaa is yeelnay dhibaatadan. haddii asxaabtayda aan difaacan lahaa maalintii ugu horraysay oo aad noo imaanaysay dhibaatadan ma i gaari lahayn. meesha ayaana lagu cunay sacii gaduudnaa. tan waxay tilmaamaysaa in dadka marka ay midaysan yihiin, xitaa haddii tabartooda ay yar tahay, in cadowgooda uusan ka faa'iidaysan karin. laakiin haddii ay kala tagaan, inay aad u fudud tahay in qof walba isagoo keligiis ah oon awood badan lahayn laga xoog badnaan karo. soomaalidan waxay dhahdaa qaybi oo u tali, macnaha dadka haddii la isku diro dhexdooda oo cadowtinimo dhibaato la dhex dhigo, si fudud ayaa waxaa ugu talinaya qof ayaga ka liidan oo ka yar. marka caruurey, tan waxay tilmaamaysaa in ay muhiim tahay dadka meel ku wada nool in ay isku naxariistaan, isku dulqaataan, cadowgoodana iska ilaaliyaan. sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa sheekada dambe aan kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.